السلام عليكم ورحمة الله. daawadayaal assalaamu calaykum waraxmatullah daawadayaal kusoo dhawaada wax kasto t v. maanta waxaan ka hadlaynaa sababta aadan ugu baahnayn gym. waan ognahay dadka badanaa waxay xayeysiiyaan in murqo kaliya lagu dhisi karo gym, laakiin arrintaas waa iskaga dhow yimid. gym uma baahnid murqo u dhisatid. gymka waxyaabaha ugu weyn oo dhibaatooyinka wajihi kara waxaa ka mid ah horta qarash waaye. horta qarashkiisa sareeyo, qof kastana ma awoodo gym inuu galo. number 2 waxay tahay inuuba ku dhaweyn xaafadaada iyo agaarkaada oo ka dhaweyn oo aadan gaari karin. 3 inaad ka xishooto. qodobkan badanaa gabdhaha u badan inay ka xishootaa laga yaabaa inay aado gym iyo waxaas, iyo marka ka cabsan waxaan u baahnida ku dhaha, laakiin xalkeeda waa ku hayo muuqaal kale la soco bis inaa ka caajisto kale niyad buu ahayn. okay, la soco xalka muxuu yahay marka. gym u baahnida ku dhahay xal inaa ku siiyo wax u bedel oo lagu bedelo. guriyaada gym ka dhigan kartaaba, guriyaada ka samaysan kartaa. qaabkee oo guriyaada gym ugu dhigaysid waa ku haya. qorshe almiito isbuucle sida loo dejiyo waa lagu hayaa. la soco nafaqada, wax cunitaankaada iyo biyo badan cab. waa faahfaahinayna arrimahan dhan waan faahfaahinayna wax yar kadib. la soco sidee gurigayga gym ugu dhigaa. su-aal fiican. shamiito ka samee culeysyo aad ku almiiteyso. geedaha ninkan oo dusha u saaran oo kale waad samaysan kartaa, si fududna waaye. mar dhawaan soo gelin doonaa video muuqaal oo idin tusaa qaabka loo sameeyo culeysyada, laakiin qalabka inuu diyaar ku ahaado waaye. shamiito iyo bir dheer ama tubo oo bir ah soo raadsada. videogaas mar dhawaan soo gelinaynaa qaabka loo sameeyo culeysyada aad ku almiiteen lahayd. sideen u degsadaa qorshe almiito oo anigana aan ku faa'iidayo. 3 qaab u degsan kartaa saaxib. 1 5 maalin toddobaadka almiitay kartaa oo murq walba aad garaacayso. number 2 waxaa qorshe kartaa qaab riixid, jiidid iyo lugo. murq walba wax jiido sida dusha iyo bicepska qaybta hore. marka gacantaada kor u soo laabta arkaysid biceps almiitaysi kartaa. riixidana waxa waaye murq walba u isticmaasho wax inaad ku riixid sida xabadka iyo gacnaha qaybaha dambe, xusulka korkiisa qaybtaas triceps allah iyo lugaha. 3 maalin waaye. hal beri soo naso haddana isku soo laabo. jimicsi buuxa oo jirka dhanna maxaa waaye. jirkaada dhan hal maalin almiitaysiya, hal meel ma dhaafaysid. kadib maalin dhaafa oo almiitayna almiitadaasna maanta jirka oo dhan almiitaysiisay, beri waa nasanee. jirka dhan almiitaysiisay oo waa nasanee, haddana ku soo celcelinay saas waaye. markaa kasoo gudubna almiitada 20% lee ka ciyaartaa markii la dhaho muruq dhisooga. 80% waxaa waaye nafaqadaada iyo waxaad cunayso inaad la socoto. waxaad cunayso waxay xadidee inaad cayilayso, inaad muruq dhisayso iyo inaad caata ahaanayso. marka ka foojignaaw. cuntadeena waxay ka kooban tahay 3 shay: carbohydrates, protein iyo fats. carbohydrateska waxaa waaye bariiska iyo baastada iyo cambuulada iyo misigada iyo digirta iyo waxaas waaye. proteinkana waa wada taqaaniin, waa hilibka, ukunta, malaayga iyo wixii la mid ah. fatis oo waxaa jira cadiin waaye, laakiin cadiin caafimaad leh waaye. waxaana laga helaa looska iyo afakaadaha iyo wixii la midka ah.
carbohydrateska tamartay kaa saacidayaan inaad tamar yeelato oo almiid si fiican u almiiteyso. Borotiinkana wuxuu kaa saacidayaa muruqii oo aad almiiteysiisay oo dhaawacday si uu soo kabto. Fatiskana waxay kaa saacidayaan ayagana inaad soo kabato waaye. Testosteronkaada kor u qaadayaan, hormooniska kaa saacidayaan. biyaha maxay kuu tarayaan? Horta inta ugu badan Soomaali markii la yiraahdo qof biyo xooga saara ma lahan. biyo caadi wax cawaay ma arkaysid, ama cabitaan ama shaah ama qaxwo. laakiin biyaha caadi wax ka muhiimsan ma lahan. marka haddaa soo koobno waxyaabaha jirkaada u qabanayaan saddexdana ka mid ah sunta jirka in laga saaro. waxay kaa caawinayaan in jirkaada sunta laga saaro. xaqiiqo kale aan idinka ilooway, 80% murqahaada waa biyo, 90% maskaxdaada waa biyo, 80% wadnahaada waa biyo, 80% beerkaada waa biyo, 85% keliyahaada waa biyo. adana biyo ka samaysan, jirkeenana biyo ma samaysan karo. waa inay meel ka yimaadaano. Number 2 waxay kaa caawinayaan inaad nafaqooyinka jirkaada, inuu raashinka aad cuntay nafaqada lagala baxo oo jirka uu isticmaalay gudaha u galaano. sidaa hore u soo sheegnay, walax baad soo cuntay, carbohydrates, protein iyo fats baad soo cuntay. waa soo cuntay ma xumo. haddaysan biyo jirka u haysanin, raashinkaas wax lagala baxayo malaha oo sidiisaad musqusha u geynaysaa. raashinka nafaqada ma lagala baxayo, sidiisaa musqusha u geynaysaa. saad u cuntay aad waa musqusha u geynay. marka faa'iidooyinkiisa dhanna musqusha la aaday. 3 biyaha ayagana waxay kaa caawinayaan saad cayo usoo kabsato oo daalka iyo waxaday kaa yareynayaan adiga iyo xanuunka aad dareemayso almiitada kadib. tabar badanna way kuu yeelayaan. haddii biyo cabowgaada oo badan yahay, cayo ma daaleysid, dadka kale waa ka awood badan tahay. sidaas waa marka. midda afaraad waxay tahay haddaad almiiteyso ama banooni dheel ama gym qaad oo ay niyadaada tahay inuu jirkaada caafimaad kuu qabo oo murqa aad dhisto ama aad weynaato ama aad caatoodo, waa inaad hurudaa macallin. dhafarka waa cadowgaada koowaad. ugu yaraan inaad hurudo 8 saacadood isku day. 8 saacadood ka yar, 6 saacadood ka yar waxay ku ciyaareysaa hormooniska jirkaada, khaasatan ragga hormoonka ragnimada hoos u dhigay oo testosterone la dhaho. marka halis waaye. markaa hurdaysana hadda maanta oo dhan soo almiiteynaysay, soo socotay, hoolaha haysay ama soo shaqaynaysay ba ka soo qaad. jirkana siinuu u baahan yahay. haddii aad seexato, jirka waa isdayactira. wixii dhaawac ahayo dayactira, unugyadii dhinteen oo ka takhalusaa. waxyaabo badan aa lagu qabtaa jiifka. marka qodobkaasna inaad iska tiiriso isku day. haddii aad wax ka faa'iiday muuqaalkan, subscribe noo dheh, like noo saar, asxaabtaada la wadaag. su-aalana soo weydii maxaa ka hadalnaa mustaqbalka. videoga birahan oo idin soo gelin doona mar dhow. hana la caawiyo marka subscribe, like, share, asxaabtaada la wadaag. nabadey.